كل شيء ما سنتين for showing up today. We'll start. We'll talk a lot later on, but right now we'll start with افتتاح ونو آخرنا يو ولكن الشيخ مختار تبغى صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ولكن المسيح مختار القرآن كاس إنه أخي مركب حدنا وحن قلدي دونا إن شاء الله برنامج كيف ما تاكل أسكولي إنتينا بدل ما شيء جوسا كور ختان سنة كيلوات غير technical issue أنا قوتي مركب ويباك مركب anyway وحن شيء وهرتوا ما سنتين ما شاء الله كنت مادين وحال كان سكول نميت إن عن قبلنا سنة كيلوات tournamentiga magaalada lagu qabanayay oo Soomaali tournamentiga sanadkan hore oo xeerogii ayuu ka yar duwan yahay waxaan noo imaanayo 12 team marka insha Allah maxaa la intaanan guda galin teamyaasha sida isku dhacayaan iyo each team meeshu ka yimi marka hore waxaan rabnaa inaan soo dhaweeno legendka magaalada Balayar hore istilna welina ciyaaro inuu hala yar oo mataqaana dhiirigelin ah oo inoo sheego insha Allah walaalkeena ma hadda soo dhaweeyo insha Allah ma soo dhawo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma dheero meesha fadhido ciyaartoyda ulusaatay iyo kuwa yarka waa salaamay kuwa hayso marka labaad waa Ilaahay mahadkiisa waxaan u maleynayaa waa markii labaad sanadkii labaad oo aan ka qayb galay shirkan oo magaalada Kansas City ka dhacay haddii aan wax yar dib u laabto oo jala magaalada Kansas City waxay soo martay waxyaalo kala duwan let's go man waxaad sameeyay it's a meeting going on شراء وبيجي رجع. تصوات إلهي مهدي. مركل الله حكتن. الهنا ماشي فضيله وكسر شقيسي ورنتي وقتي يجودي الجريء أو قدوميها سبورتي ويا كان سيدي عبد الرحمن أنكل جراد أبولا يريسو أبوانكو أفديو هارون عمر فارح عبد يوسف ما شاء الله كمان ودلنتي أنا نبدل له وما تقعد كويس وأنا حسوستا حلقة حكى لسه ويا كنسل وأنا آلي تشيلني أوهايو مانسوتا ويسكنسن
intaasaan kusoo dheehnay dhalinyarada maanta hor fadhidan runtii waxay qabteen howl aad iyo aad u qurux badan oo runtii lagu mahadiyo lasoo dhaweeyo lagu farxo weliba ayagoo bixi jiray oo Minnesota aadi jiray Wisconsin aadi jiray bay haddana waxay ka doorbideen in ay magaalada gudahooda ku qabtaan sanadkii hore soo dhaafay saan oo kale ma sheegin haddana kooxda way ka sii badan tahay 7 kooxoodna mise 6 kooxood dibadda nooga imaanayso taasoo waa ilaahay mahadi dadweynaha soo dhaweyna waaye Soomaali haddaanu nahay ciyaartooyda noo imaanayso oo martida u nahay qof walba magaalada kalsaliin soo dhaweeyo ama fadlo soo dhaweeyo sanadka ku xigana waa ka sii dhaqaaqayna insha Allah taala waxaan u mahadcelinayaa uncle runtii ka shaqeeyay garaad oo ka shaqeeyay abwaanka Cabdullaahi dhalinyarada ku dhaantiriyay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaf iyo cizo iyo karaamo ay tahay markii labaad inay ku xasuutaan وانا مع سنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله walaalkeen uu mahadsan yahay mahad waa nin khibrad badan u leh markay timaado dhanka sports markay timaado markaan shamay uu mahadsan yahay dhiirigelinta mar walba dhalinyarada dhiirigeliyo inuu mar walba garab taagan yahay inuu mar walba marka loo baahdo uu yimaado marka waa ka mahadcelinayaa midayda insha Allah marka إن شاء الله مركم حالا هوشينا سي ودانينا إن شاء الله وحق جود قلي دونا إن كسر دبيو ميكروفونك أو حالا ير نوغا ورمو تورنمنتي سنة كان هي تورنمنتي سنة كهر لغبتي وحالا كل دميهن ولا كان أبوانك إن شاء الله سوري بابا عليكم السلام ورين الله يا محمد مستوى ضمانتي بدو دلوقتي سو اوكي تمام هو متقنا هو ضمان فهو اختباراتي كلي هذا بلن عندي الهواء دلوقتي والله وقولنا زي الحين مع سبورتس سلام متقنا دلوقتي سو مري هذا بلان اسمه المعمارة حوالي كلية حوالي دور واحد إن شاء الله قلت إن مسؤولية واحدة وفي المسؤول الصعب إذا ضد وكيلة وحوي مسؤول المدرب صعب الحين قلت حاجة أنا كذي أظن أول مرة نحوي رمشيو كذا لو هلو دهان لا ما سنتهي حوي بكمية وسمسي سنكرس عم بقول عليه ما شاء الله سنة كنا حفلنا إن شاء الله إني سبورت بقول كسي في عام سدي لاسي أقول عليه سنة هذا بنا إن شاء الله سدوم كنتي ده واحد صوب كنت سوق دي مقالة دي من كنا صوب فكمل كنا شايف كمية أنا حابب بعدين ملاحظة إن سيدا متقنا من صورة كله أو هاي وكله كلمتي ولا صدام عيلة متقنا واحد يسجليه ولا entertainment ونقطة قف كمرك كوكا لي ماذا وين وقلب استعمل عمره بالبوكيو تاس أنت ما تصدقه إن شاء الله ربنا عيلة كان اسمه في عام وضد متقنا سعادة ولا متقنا فلان والله intaasna kow waxaad hoggaankeeda haya Cabdiraxmaan cid walba haddii mataqaanaa dadka business kale ama dadka mataqaanaa waxa weeyaan dhalinyarada shaqaysata insha Allah waxaan codsanayaa in la garab istaago intaasaan kaga baxayaa waa mahadsan ما شاء الله walaalkeen abaanka wuu mahadsan yahay marka asagana waxa dhalinyarada magaalada ka tirsan yahay mar walba dadka dhalinyarada waxay markay isku dayayaan inuu garab istaago inuu wuxuu qaban karo uu qabto iyo mar walba ku dadaala marka wuu mahadsan yahay ma sha Allah and right now I would like to welcome one of our brothers Moody long time Somali team member always been with the Somali community in Kansas City
He's a great guy. I played with him. He's a good striker too. Right now, most of us already retired. So, but still, he still plays. Like, I would like to welcome Moody to say just a few words of encouragement to everyone here. So, welcome, Moody. Sorry. Thank you, everybody. Thank you for all the respect you guys give me all the years. I appreciate it. You guys made me one of you guys. Of course, I'm one of you guys, so don't worry about it. Apart from that, I just want to say congratulations and Mabruk, Dr. Rahman, to organize this. We need this kind of thing in Kansas City. We don't have it. You go any other states, Somalis community doing very well in sports and every other thing community. But Kansas City, we're a little bit back. So hopefully this is the beginning of the future. And we're trying to bring young guys, instead of being outside, doing other stuff, but sports bring people together, stay out of drugs and all kind of stuff. Apart from that, I play with some legends here. Mahar here, who could not hold me. I used to take him. Yeah. Here. He's a rapture guy, always making noise. Yeah. And apart from that, everybody, and Maalimka, he retired, but he used to be good too. Yeah. I really appreciate it. I know him since he was a kid, mashallah. Now he's grown and everything. But nice to stay with the community. We got our big brother up there. He's doing good too. Oyaye. He's a video guy now. Yeah. From that, Yeah. apart from that, Jazakallah khair. May Allah make it easy for us. Make dua for everybody in the world. Make dua for the Muslims. Make dua for Palestine. And inshallah, may Allah make our ending be a good ending. Inshallah. He used to be a great player. He still is. But yeah. So, just age is a number, you know. Yeah, but he can still score goals. So, Marka, thanks for coming by, and it's always good to have you, man. Marka, I will move on from there, and right now I would like to welcome our chairman, our sports chairman, the guy who Kuligan Square Ken Halkan. He's doing a lot, so we thank him mostly, and he wants to put Kansas City on the map. Basically, that's what he's trying to do, and hopefully in the near future he will be able to succeed in doing that. Marka, I would like to welcome our brother Abdurrahman on the stage to talk more about his tournaments, what his plans in the future are, and I know he's gonna do great in the future, inshallah. Welcome, Abdurrahman. Assalamu alaikum. Thank you for all showing up. As I'm not prepared, I have my notes up here. I would first like to welcome the second annual Somalian Indoor Soccer Tournament. This year we are growing bigger and better. We have more entertainment, more excitement, and even stronger competition. 12 teams tournament. Tonight we will conduct a tournament. Welcome all the teams, especially the teams who's traveling from out of state. It's truly an honor to have you here, and your presence makes the event even more special. We hope this tournament brings a great competition, connection, and meaningful experience for all of you. Thank you for making the journey to join us. I also want to highlight something important, the new chapter we're embarking on as a community. The new Kansas City Somali community has came a long way. We decide it's time to take the next step. Moving forward, we need a team that represents all of us when we compete out of state or any other competition where Somalians are all there. Our goals are big. 2025, we plan to join every Somalian tournament in the Northern America. After careful consideration and decision in the community, I am thrilled to announce the official team name, KC Somali United FC, will be the new community team. This team will symbolize our unity and share our purpose. More details about the team will decide in another event. Tonight we also have a special event, the KC Somalian Awards. Presenting the 2024 Player of the Year, we have 3 outstanding nominees, Adriyad, Abu, and Qatar. To ensure fairness, I gather votes from the trusted community leaders, and the winner will be revealed later tonight. Additionally, I want to take the moment to address a big vision that extends beyond tonight. It's time to bring the African community together as one. In the future, I personally work on bringing African community together to focus on youth and sports.
One of my main goals is to bring African Cup of Nations to Kansas City, a tournament that will unite all of us as one banner. Looking ahead, we plan to introduce awards like the KC African Player of the Year to further celebrate the honor and talent we have in Kansas City. Together, we can build an strong and proud African community in Kansas City. But this will only happen if we all work together and support the vision we have and the passion we love for this soccer we have, the passion we have. Thank you, God, for trying to make it happen as he plans to launch an African community. We all support on that. One more thing, if you want to make everyone happy, don't be a leader. So I'm not trying to make everybody happy. Uh, if you want to make everyone happy, don't be a leader. Sell ice cream. But I'm not here to sell ice cream. I am a leader, and I know I can't make everyone happy. However, I will do my very best to make this community the best it can be. Once again, thank you all for being here tonight. Your support and energy mean everything to this community. If I missed any key points, I apologize. I will address them as the night goes on. Coming back to the tournament, we have a 12-team tournament, inshallah, and 8 teams out of state. So I ask you all to welcome that 8 teams. See what I do, inshallah. And last year there was no fight or anything else. We enjoyed the tournament and I hope this year it's even excellent. One extra team from Kansas City that did not have a club, so we put them all the way into one club one. There was a team that didn't show ego said that's why team Afraad Kansas City Mall Sameerun بالوضع وحي أنا كأسكول team مجال tournament 12 teams I forget. This is 12 team tournaments. So how we're gonna do is we're gonna have 3 groups. Group A, which is gonna be Moody. Group B, which is gonna be Qadr. Group C, which is gonna be Farah. Okay. From there we have 4 blocks. That means each group will have 4 teams. End of the day. Once you have your four teams draw is done. But I'm explaining the future, what's gonna happen in the future. Once Group A, if all your teams play, whatever they contribute to the group, like draw points, goal difference, it will come on a table where it's the tournament overall 12 teams. End of the day, when the group stage is done, we're gonna go over the overall table, which is 12 teams. The first 8 qualifies to the quarterfinals. The last 4 of the 12 goes out of the tournament. We understand clear? We have to explain anything? So, let's say for example, waxaan dhammaan marka waa maasantiin intii waa maasantiin kulligiin mashaa halkan aad timaadeen maanta waxyaalo badan ka hadalnay haddana waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena marka waxaan sameyn doonaa drowga tiimamka sida horey uu noogu sheegay walaalkeena waxaa waay 12 team waaye 8 team ayaa out of state noogu imaan doono 4 teamna magaalada ay ka imaan doonaan marka hadda waxaan ku wareejinaynaa walaalkeena Cabdullaahi oo drow qaab u shaqeynaya noo sharxi doona insha Allah soo dhaw Cabdullaahi Assalamu alaikum. Alaikum salam. So, Malcolm, I'll lead the first of the. Let me explain in English. So we have 4 bots, each containing 3 teams. So we have 4 groups. Part 1, which contains 3 teams. Part 2, and part 3 and 4. So we have Moody, Qadr, and Farah, who all represent Group A, Group B, and Group C. So the same way as we watch it in Champions League and Europa Leagues. First, we'll start off with Group Part 1, which Moody will shuffle and choose a team, which will be allocated to Group A. Qadr, the same thing, and Farah, the same thing. Once we're done, we move on to Part 2, the same thing, and until we're done. And inshallah, I'm happy to today. Haddii Soomaaliya ku nahayna waxa waaye afartan waxa baala ku jiraan. So each waxa ku jiro 3 team. Moody, iyo Qadr, iyo Farah oo noo kala helaya Group A, Group B, Group C. Mid walba waxaan ka bilaabaynaa midda hore, number 1.
middle wuxuu kala baxayaa teamka uu kala baxo groupkiisa noqonaysaa kala sidoo kale laakiin sidoo kale markaan dhammeeno insha allah ilaa ka toban ku dhammeeno. Same thing as we watch in European jobs. Are we ready to start? Look, inshallah, first we're going to start with part 1, which contains Young Africa, DC Pirates, and KC Tigers. Okay, so doing that, Moody will shuffle and choose a team for us, presenting Group A. So go ahead. Alright, Group A, Moody Jones Mahali, the Young Africa FC. Young Africa FC. Shuffle. Group B. Think of Group B over here. No, Group A. Group B. Group B, think over here like KC Tigers. KC Tigers. I know how it. Group C. Group C. DC Pirates FC. Group C. Okay, so I can handle it. Ready for that? Group A, Group B, Group C. Group A, Amuria, Hawaii, Young Africa FC. Group B, Okada Nosopoli, KC Tigers FC. Your Group C of Nosopate, DC Pirates. Makada, type to cover what Matena, Moody shuffle to this one. So Group E, Group A, the second team. Group A. The second team, Hagen FC. Hagen FC. Okay. Group B, second team, Peace and Sweden. Group B or KC Tigers are already good job. Second team from Hawaii. St. Cloud United. So Group B, Hawaii KC Tigers is St. Cloud United. So Group C. Group C, already Wahana DC FC. Hawaii Rochester Diga. Group C, Rochester. Okay, Adan Marco, Suno Group C, Wahana Sanai, DC Pirates, here Rochester Diga. Group B, St. Cloud United, KC Tigers. Group A, Young Africa, Hagen FC. So هذا وحيناها المركب. The third team تستحق. وعقبت تستحق. The same thing هذا سمينا نوري شباب يسون. This is part 3. I'm ready for the city. This is Omaha, Nebraska teams. Okay, Somali Stars. Somali Stars. Group A. Group A, Somali Stars. Okay. Group B, our team had already Asana or St. Cloud United in KC Tigers. The third team, Matusayo, were Omaha Stars. Okay. Group C, I already know the one. Already has the DC Pirates, a Rochester, a Diga. Group C, Omaha Elites. Omaha Elites. Okay. That's the hell or not the each group had the slow Jedan, وهاي السنة تحتين وقيبت قدام بيسو أفراد أو جروب المستريز. نوري شابو and just one. Wisconsin, yeah? This is Missouri team. It's a home team, brothers. Yeah. I hope we keep the trophy here.
Okay. Harun team is in there. KC wadajir. Last team group A waxaa waaye KC wadajir. So hal mar haddii aan dul maro intaan group B dul aadin group A afar team way noo dhamaatay. Midka koowaad Hagan FC, Young Africa FC, Somali Stars, KC wadajir. Group A saasa Group B color team oo noo dhamaystiri lahaa Teamka ugu adag oo marina kan yiri. United Boys. Group B kala saasa nagu dhamaystiray hamar haddaan dul maro Group B waxaa waaye St. Cloud United, KC Tigers, Omaha Stars, iyo United Boys. Marka waxaa inoo soo haray Group C oo Faarax oo noo dhamaystirayo mid ugu dambeeya. Kansas City Stars, KC Stars. Okay, Group C hal mar ayadana haddii aan dul maro waa Omaha Elites, DC Pirates, Rochester Xidigaha, iyo Kansas City Stars. Joogna intaas ayuu noogu egyahay. Waa wada jeedeen Group A, Group B, iyo Group C. Marka maxaa la dhihi jiray hal mar giraada noo dul maraayo maadaama uu qorayay Group A intay tahay iyo Group B maadaama Wallahi wuu mahadsan yahay. Sidaa u arkayseen drooga wuu noo dhamaaday. Marka hal mar hada dul maro gruubyada waa 3 group A, B and C. Sidaan u arkayna kulligiin live u daawanaysaan. Group A waxay ka tirsan yihiin Young Africa FC, Hagan FC, Somali Stars, KC wadajir. Afartaas waxaa waaye Group A. Group B waxaa ku jiro KC Tigers, St. Cloud United, Omaha Stars, United FC. Afartaas team waxay ka tirsan yihiin Group B. Group C waxaa waaye DC Pirates FC, Rochester Xidigaha, Omaha Elites, iyo KC Stars. Afartaasna waxay ka kooban yihiin Group C. Sidoo hore uu noogu sharxay walaalkeena Cabdullaahi tournamentii qaabka u shaqeeyo waxaa weeye group walba teamka afartaas tirsan yihiin qof walba markuu reeyo ama draw uu galo ama laga reeyo waxaa la soo gelin waxaa lagu daawici doonaa timetable oo teamka kule ay helayaan. Marka qaabka u shaqeyso waxaa waaye 8 team markay qof walba wada ciyaaraan 8 team u horeyso ayaa aadeyso mataqaanaa quarter final. Afarta u hooseysana league sida ayaga ay elimination u galayaan. Waxaa intaa marka soo raacayo number 1 iyo number 8 ayaa quarter final ka ciyaaraya. Number 2 and number 7 quarter final ka other team ciyaaraya way. Number 3 and number 6 is the other one ciyaaraya. Then number 4 iyo number 5 na waa isku dhacayaan. Marka quarter final kan qaabkaas ay u shaqeyn doonaan. Sida marka kulligiin dadka daawanayo teamka magaalada kala ka imaanayo in la socotaan in hadhow aysan isqa qabsi waxba aysan imaan inta hadda uusan bilaawin tournamentii qof walba sharciga oo u shaqeynayo qaabka loo ciyaarayo waa sida ayada. Marka intaasna waxa ku soo gabagabeynayna maanta drowgeena isku nimi meeshan iyo wada hadalka aan ka wada hadlaynay community gabi ahaanba. Marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka intaas waxayna drowga noogu eg mustaqbalka waxaan rajaynaynaa insha Allah in the coming years meeshan Somali tournament kali aan qabanayno in aan qabano African tournaments. That's the goal in the future insha Allah. Marka magaaladan waxaan rajaynaynaa in aan ka aasno mataqaana community oo quseeyo all African wixii Africa dhan ah. It's not just Somali. East Africa came out mataqaana West Africa came out all other wixii Africa dhan isku daran. Marka waxaan rajaynaynaa in aan qabano like African Cup tournaments insha Allah in the future. Marka taasna waxa waaye waa wax oo mustaqbalka ah not right now laakiin that's a goal mid ay inaan sameeyno. Marka insha Allah kulligiin aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرنتي ومحسنتين دمانتين سيدا نو شرفتين نوغو إماتين runtii si qurux badan aad iyo aad u wanaagsan ayuu noogu dhacay sanad walbana ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan isi ka fiican ba inuu noogu dhaco waxaan hadda gacanta ku hayaa laacibka magaalada Kansas City maadaama waa ciyaartooy hore aan ahay
ciyaartooy dambana aan ahay odayaasha aan la dheelo dhalinyarada aan la dheelo horta waa mahadsantiisa ay igu sharafteen warqadan aan gacanta ku haya waxay ka turjumaysaa laacibka magaalada Kansas City ama afka qalaad lagu yiraahdo the best player of Kansas City 2024 every year na waa bixinaynaa koobkan aa ujeedaan sanad walba waa bixinaynaa laacibka magaalada Kansas City maadaama ciyaartooy da'yar oo laacibiin ah aan heysano sidaan hotor moraalkooda u dhisno horena aan uga sii dhaqaaqno sanad kasta waa sanadkan 2024 sanadkii hore waa bilaabnay kii labaad waa soconaynaa ragga magaalada Kansas City oo ay daawanaya hadday ku jiraan ha dagaalamaan qofkii qaadan lahaa it's not easy qof la siiyey laacibka magaalada Kansas City oo 7 kooxood 8 kooxood ka dhisa magaalada Kansas City haddaba who is that who is the best player in Kansas City Abu Yeah, thank you thank you very much I appreciate that waxaa ku heshay halgankaaga waxaa ku heshay dadaalkaaga waxaa ku heshay horumarkaaga waxaan rabnaa dhammaan dhalinyarada magaalada Kansas City the best player inay u aqoonsadaan wuxuu qabtay howl aad u ballaaran wuxuu ka dheelay Kansas City gudaheeda wuxuu ka ciyaaray banaankiis the best player u sacto gacantii Thank you, everybody. I appreciate everything. You know, I have a mic. Yeah. Yeah, I just want to say thank you for everybody for being here. This is a very big moment for me. You know, I'm glad to represent Kansas City, Missouri. Uncle Kelly is a man. Grad baa la socdo. Waxaa la socda Haruna la socdo. Abwaanka la socdo. Rag badan baa garabka kaga jiro. Masha Allah. Waxaa heshay garab aad iyo aad u weyn heshay. Masha Allah. Yeah. runtii waxaan ku leeyahay hore uga sii soco insha Allah taala. Ooyee maxaa ku darsanaysaa? Insha Allah soo gabagabeynaa. أنا غلف الصور ما هو صورة كذا ما صور كم marka waana ku faraxsanahay daahida ay maaday ma sha Allah marka aad u mahadsantihiin best player kan waa kana Khaliifka Mahad Mudu dhalinyaradina dhamaantiin waan idin salaamahay sidoo kale ka soo qeybgashay waxaan jecelnahay sanadkan sanad ka fiican inuu noo noqdo waan idin salaamahay Khaliifka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قريرته أما وين كقيارته كل سلامتي دمانتنا ما شاء الله. واحد قدام هرته ووحلو باهية ما عرفتي أن بدلوا باهية هاي إنك استوى الله هدتك هريا ما عرفتي. رتاير اسمه شيء كرنوا هو نحن هذا انتاجنا هاي كله لكن ولي جينا ما عرفتي وحان وينها إن المر والبا بوش كرنا ما عرفتي دليرت سبورتي ما عرفتي دم والبا سيدي أهان لهاد هذي أهان لهاد ما عرفتي عيار هذي أهان لهاد أما العك هذي أهان لهاد أما نية هذي أهان لهاد لكن هاد حوجا يروح وحان أصيد على إن أهيج ما عرفتي ولكن أنت نفتر كذا وحا كم إذا سيد الكاميرا ده وكلا ما عرفتي إن ما عرفتي إن لقوا موجي ما عرفتي كان سيري وحا كجرا أرنتاس عن حوجا معلومها عن حوجا سكوب قادينها إذن كانوا حيدن لا يهاي معرفة دلال الحجل إن سميسان وأتبوسك أتبوحسانو أن ركبهم بمشي كبحاي فانتي بوسكاس أنا أتبوحسانو أتنقطانو معرفتي إن أستيت أتكسي بحذا كلي ما إنه وقت هذا معرفتي من الصوتي وهاي كلي شيء ما إلا كندي لو كامل معرفتي إلا سي صعود هذا معناه في عنته إنه أسكو حرناتانو نك هذا هوش هاي إنه وحواي
horta waxaan leenahay maasha allah qayb badan allah ha siiyo Abdurrahman. waa inaad cabdiraxmaan maaragtay aad xooga yaro xoogga aad saartaanoo keliya inaadan ku fiirino maaragtay far keliya fool ma dhaqdaa liir waa inaad macnaha xoogga maaragtay dhan walba hadday ahaan lahayd dhiirigelinta naftarkeeda wax weyn weyn inaad ku dhiirigelisaano maaragtay insha allah kale waa mahadsantihiin sidaad macnaha aad iskugu timideen maaragtay hawshaan u haysaano insha allah waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada Moody. Say again. It's okay. You want to? Assalamu alaikum again, it's Moody. Mabruk, Allah barik, inshallah, for the best player. He's doing great. He's a good player and he's a good striker, but he hasn't reached my level yet. You know what I'm saying? So we'll get there, inshallah. Apart from that, again, congratulations to everybody here for doing this for the Somali community. Abdurrahman, mashallah, may Allah guide you, inshallah. And let's keep going. Apart from that, guys, let's have fun. Let's love each other. Let's pray for each other. Make dua like always for each other. And inshallah, may Allah make guide for us everything. And Abu again, congratulations. mashallah.